waxaan halkan tacsi tiiraanya leh uga dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii maantay ku shahiiday degmada Yakshiid waxay ahaayeen Allah u naxariistay dulmidiidayaal shahiiday una shahiidaya iyagoo difaacanaya hoygoodii ay deganaayeen sharaftoodii iyo qoysaskoodii sidoo kale waxaan u duceynaynaa dadkii maanta meeshaas ku dhaawacmay in Ilaahay si dhaqso ah ugu boogadhayo eheladooda dayacanna u dhib yareeyo magaalada Muqdisho maanta waxay ugu suntan tahay taariikh mugdi ah maanta waxa ka dhacay magaaladan qaxi ka dhacay ebid ee ugu darnaa maanta waayahan dawlad shisheeye naguma soo duulin alqaacida naguma soo duulin shabaab naguma soo duulin dagaal sokeeye ma dhicin dadka maanta magaalada Muqdisho laga barakaciyay oo ka dhacay qaxi ugu badnaa waxa qaxiyay dawladii la rabay inay dadka Soomaaliyeed iyada u adeegto sharci darana ku joogta oo waqtigeeda dhamaaday dadka Soomaaliyeed oo maanta la qaxiyay hooyooyin iyo aabbayaal iyo caruur jidadka ay waran yihiin degmo walba ay u qaxeen gaajo iyo duruuf ay la ildaran yihiin dadka Soomaaliyeed waxbarashadoodii waa baaba'day oo caafimaadkoodii waa baaba'ay oo noloshoodii waa baaba'day oo caawa hooyooyinkoodii aabahood walwalka ugu badan waxa waaye caruurtaas sidee loo daryeelayaa dawlad waqtigeeda dhamaaday oo sharci darro ku joogta ayaa dadka sidaas u barakacinaysa wiilka Soomaaliyeed oo maanta la barakaciyay waxaad barbar dhigtaa nus qarni ka hor ama ka badan madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday markuu inta la ekaa dawlad Soomaaliyeed ayaa siin jirtay waxbarasho lacag la'aan wuu og yahay wali wiilka maanta la qaxiyay noloshiisa maskaxdiisa waxa ku jiri doonta waxaan ahay ninkii la dhihi jiray Xasan Sheekh Barakaciyay oo mustaqbalkiisa ku baabi'iyay oo soo dhibaatay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga oo dadka la kicinaya fiirsanaya oo marxaati ka ah oo aaminsan inaysan ku iimaaneen iyagana waa ku iimaanaysa wareer Muqdisho dulmi intaan ka badan lama qaadan karo darxumo intaan ka badan lama qaadan karo iimaan darro intaan ka badan lama qaadan karo qoomkan ummadda ku soo duulay inay tirtiraan aan iska qabanno anagoo wada jirna ciidanka Soomaaliyeed ee loo adeegsanayo inay ku duulaan hooyooyinkoodii aabahood inay isweydiiyaan waaye yay u shaqeynayaan yay amarka ka qaadanayaan inay dadka soo laayaan bari waa leedan la xisaabtamayaan qofkii maanta qof xabad ku riday qofku yahana waa la og yahay dadka ay ka dileenna waa og yihiin dawladdaana dawlad baa ka dambaysa waa la isu imaanayaa waa la xisaabtamayaa ko waxa wax ku dilaysaan waa dad Soomaaliyeed oo dad ay dhulka ka dhacayaan wali lama arag in qola ay soo qaadato ganacsato ah ay tiraahdo annaga dhulkan iska leh nooga kaca 60 tignikana habeen 9 saac ay soo wataan Soomaaliya bay ka dhacdaa ciidanka Soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ciidanka ka tirsan inaad ogaatiin waxa ka shaqeynaysaan waa inaad idinku mustaqbalkiina u dhaarateen god ku ridaan ha yeelinina ha noqonina ma liibaanayaashii lagu liibaanay inta dunida joogtaan
aakhirana ka fikira maalintii la idin weydiiyo maxaa dadkaas u disheen dad baa noo soo dirsaday inaan u dhacno ilaahay idinka yeeli maayo adduunyo iyo aakhiraba ha iska hadlaynina ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo annagu maanta waxaan u soo istaagnay shacabka Soomaaliyeed inaan u muujino inaan garab taagannahay diyaar u nahay inaan garab istaagno dulmiga muuqdana inaan u taagannahay inaan niraahdo lama qaadan karo qof kasta waa inuu soo istaagaa isaga difaaco si walba uu isaga difaaci karo dawladda sharci darrada ku joogta oo u joogta kaliya inay dalka boobto waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh